كان في عدونا كو سيدي أظن قلنا هيد mentally قف دسن وشخصية مسكحي سدسن كريه سيدي عادو سميسين لهيد يسي عدقالو سميسين لهيد that's the best sleep books aan kula oran karayo waad ku bilaabi karaysaa after that markaad raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaad muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sidii aad u bilaabi lahayd caado akhriska iyo buugaag sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa buugaagta ku saameynta badnaa noloshayda iga anfacay saddexdii buug ugu tayada badnaa oo qofku ku bilaabi karayo iyo habka ugu fudud oo qofku ku bilaabi karayo inuu wax akhriyo iyo caado akhriska u sameeyo inta aan mawduuca guda gelin haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad nagu jirtana la wadaag asxaabta la jecesha horumarka iyo isbedelka nolosha سو قفكو بلابي كريه wax akhriska waasha ugu badan ee inta soo weydiyaan ustaad la soo wadaag buugaag aan ku bilaabi karayna ama maxaan akhriya qofku inta uu bilaabin akhriska waxaan jeclaan lahayn kula wadaago saddex qodob oo anigu aan jeclaan lahaa markaan akhriska bilaabay inaan ogaado haddii aad tiraahdo maanta waxbaan akhrinaya waxaan nool lahay waqtiga ugu akhriska badnaa dadka bini'aadam qof ana wax akhrin maanta ma jiro qof kasta oo social media isticmaalaya ama YouTube ama meesha doonaya ku jiro waxba akhriya laakiin waxa akhrinayo wax anfacay muuya haddii aad comment akhriyayso waxaad qof wax akhrinay haddii aad comment bixinayso waxaad qof wax qoray haddii aad war akhriyayso waxaad qof wax akhrinay laakiin waxa weeyaan waxaan akhriyayso wax ma yahay noloshaada isbeddelay marka akhriska laga hadlayna waxa weeyaan haddii maanta akhris yiraahdo soo qaado ay buug oo waxba buugigu soo anfacay faa'iido ma keenay waxa weeyaan waxa aad akhriyayso noloshaada isbeddel saameyn ma ku yeelanaya haddii aad hesho marka koobaad waxaan akhriyayso inuu isbeddel ku sameeyo it will be easy haddaba si aad u hesho waxaas marka koobaad waa inaad adigu hesho adigu say isku heli karaysaa maxaad jecesha oo maxay waxaad xiisayso haddii waxa jirta inta markii aan akhriska bilaabay waxyaaladii ugu adkaa waxay ahayd inaan buug bilaabo dareemo abuugii xiise gelin lay amaan sababtoo weyn waxay ahayd anigu ma garanay waxaan jecel maadaama aan garanay buugan lay amaanay qofkii amaanay waa xiisinay laakiin anigu ma xiisinay waxa dhacaysa intaas oo buug inaan iibsado ka bacdi aan dhameystiri karin markii aan ogaaday inaan akhriyo kaliya waxaan jecelahay dan markaas ay fududaatay inaan caado akhriska bilaabo soo marka haddii aad rabto inaad akhriska bilowdo marka koobaad waxaad u baahan tahay inaad hesho qofkaad adigu tahay adigu hesho waa maxay waxaad xiisayso waxaad ku bilaabaysaa salahan oo kale waxaad jeceshahay meelaha qisaska soo qisas buugaag qisas soo qaato talabaad aad isweydiisataa waxaan markaad akhrido maxaad ka faa'iidaysaa waa maxay waxa aad buugan akhriyayso inaad ka faa'iidaad rabto ka bacdi markaad ogaato wixii aad ka faa'iidaysay dan aad practical u bedesho wixii aad u bedesho ficil ahaan u bedesho marka saddexdaas uu ka qabato aad akhriyayso waxaad jeceshahay wixii aad akhriyeysay aad arkayso adigoo ficil u bedelaya way fududaanaysaa inaad joogtayso oo sii wado waqti akhriska ama aad bilowdo waxaad bilowdo ilaa dhamaadka akhriso marka seed ku bilaabi karaysaa waxaad jeceshahay ama caada ku samaynaysaa waxaan kula qaybtami doonaa saddex buug oo islaahay qofka way anfacayaan maadaama haddaan dhada buugaagta maanta buugaagta ugu wanaagsan baan kula wadaagi karaa boqolaal buug baan kula soo wadaagi karaa laakiin buugan kula soo wadaagay waa buug aan jecelahay ama buug aan xiisaynay soo waxa weeyaan buugaagta aan kula soo wadaagay waxay noqon doontaa buugaag adiga ku dhisayso ko waxaan kula soo wadaagi doonaa buug habit si aad samayn karaysaa caado cusub buugga waxa ka hadlaya waa buugga number 1 aan kula wadaagi lahaa atomic habit waxa ka sheekeynaya saad u samaysan lahayd caado cusub sidii aad u samayn lahayd wax aad joogtayso ama caadadii hore aad caado kale ugu bedeli lahayd haddii aad commentiga akhri jirtay haddii aad commentiga qori jirtay haddii aad warka akhri jirtay markan aad u samaysan lahayd caado kale oo adigu ku anfacaysa oo saddexdii qodob ka mira dhalinayso markaad caadada samaysato buuggan ka sameeyo hal bil ku akhrido dan waxa ka u baahan tahay waa maxay hadafka oo hadafkaaga soo gaari karaysa sida gool u dejisan karaysa goolkaas oo ka mira dhalinayso ama waa maxay waxaad u socoto waxaad rabtaa inaad financial samayso waxaad rabtaa inaad aqoon gaadho jaamacad gasho jaamacad ka soo baxdo waxaad rabtaa business aad leedahay inaad bilowdo soo sida u dejisan karaysa qorshe bilaana oo uga mara dhalin karaysa buugga labaad ee ka anfacay wuxuu noqonayaa thinking grow rich buuggan wuxuu ka sheekeynayaa wuxuu abuug maxay qoraagu darisay 500 ee qof ugu saameynta badnaa ee darajada ka gaaray adduunka nolosha la oran karayo horumar ama ganacsi ama ha noqoto waxbarasho ama diin ama philosophy dhammaantood oo dhan dabeecadahooda qaabka u dhaqmay dadkay ku xidmeeyeen si dadka ula xiriirayeen connectionka si u sameeyeen si hadafyada u dejisanay dhammaantood oo dhan soo qaadanay mid u tusaale kugu soo qaadanay sidoo kale wuxuu ku siinayaa tusaale ficil aad u bedeli karayso oo marka aad capital kasta aad akhriso isla markaaba aad ficil u bedeli karayso waxa kamid ah tusaalayaasha ugu waaweyn soo qaadanay Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ugu soo qaadanay sidii ugu soo bilaabay isagoo oon waxba qoray waxna akhriyin waxii uu ku soo degay maadaama ninka qoray islaamka diinta islaamka ma aaminsan laakiin wuxuu ka arkaya perspective ah qofkan hadafkiisii iyo adduunka intuu lahaa iyo halka uu ka gaaray isagoo oo ma ka jooga adduunka oo dhan diinta islaamka gaarayso maanta ay gaarsiisanta uga mira dhalinay intaasoo qof oo iyagu nabiy ahayn haddii aad noqoto sababtaada isagu nabi waxa ilaahay baa taageeray waxa weeye intaas oo waxa jira shakhsiyan oo intay wax bilaabeen ka mira dhalin si u dejisanaya si uga sameynay si qaabku u sameynay waxaas oo dhan ka hadlaya buugga dadka badanaa ee maanta waqti xaadirka nool ee guusha gaarayna dhammaantood waxay ku relate gareeyaan guusha ay gaareen buugga
Elon Musk ninka sameeyay Facebook ninka sameeyay Amazon dhammaantood hadda fiirsato waxay soo wada qaadaan waxa ninkan ka sabab ah Tony Robbins ninka ganacsiga qoraaga tababaraha speakerka haddii marka aad rabto isbedel weyn inaad samayso ood noqoto aad goal leedahay it will be one of the best book ka caawinaya sidii aad shakhsiyan adigu isku heli lahayd aad u dhisi lahayd aad goalkaaga u samaysan lahayd soo markii aad caadadii aan helay aan buugii samaynaysa aad u samaysan lahayd caado cusub aad samaysan goalkii cusba haddaba goalkan sideen dhaqaale uga samayn kareen waxa dhanteeda badan ay soo weydiiyaan si inuu dhaqaale u samayn karaa si lacag gali karaa maanta hadaan ku dhaaf soo gal crypto ana aqoon leh ku baraya this is what I love anan ogaana dhaqaale ka samaynayso laakiin ugu meel kasta maanta online ka ka samayn karaysa ama forex ay noqoto ama crypto ha noqoto soo si aad u hesho waxa jeceshaad lacagta dhaqaale ka samaynayso buug waxa jira ka anfacaya oo the 4 hours week balada buuggan wuxuu ka anfacaya isaguna sidoo kale sidii aad u heli lahayd waxa dhaqaale ka samayso aad maanta online sidii aad ugu biiri lahayd anad qaabka 9 to 5 ka ee u shaqeynayso qof ama hadaad maanta shaqaalada ama jaamacad dhigato waxana aad baranayso wax kale aad ku garab dhisi lahayd oo kaga maananto oo adigu jeceshahay qaabkeedu heli karaysa si loo la xiriira dadka online qaabkee loo baaraa maxay ahayd product ama inaan samaysan rabto qaabkee online wax lagu iibiyo everything is ka hadlaya buugga marka saddexdan buug waxay ka anfici doonaan kow sidii aad u noqon lahayd mentally qof dhisan oo shakhsiyan maskaxiisa dhisan karaya sidii aad caado u samaysan lahayd iyo sidii aad dhaqaale u samaysan lahayd that's the best three books aan kula oran karayo waad ku bilaabi karaysaa after that markaad hesho haddii tola branchka jeceshahay qaybta aad jeceshahay raadcay ta qaybta ka akhriso haddii aad rabto financial aan noqoto qof stability dan akhri investmentiga iyo wax loo maalgeliyo iyo dhaqaalaha loo sameeyo dan waad heli doontaa laakiin marka koobaad waxa weeyaan in aad samaysato caado akhris caado akhriskana waxa ku samaysan karaysaa marka aad adigu hesho adigu shakhsiyan hesho adigu aad qofka tahay waxaad jeceshahay aad bilow haddii maanta buug way soo qaado ka sheekeynaysa dhaqaale loo sameeyo laakiin xiiso ku gelin karin boring ba dareemaysa saadar ku sheegay markaan akhriska bilaabay buugaagta ugu badan wax jira buugaagta intaan akhriyo aan iska dhigi jiray ama hurday qaban jirtay markaan la page akhriyo sababtu waxaan akhrinay ma xiiseyn laakiin markaan caadada samaystay inaan wax akhriyo waxa dhici karta inaan maalinka qaar ku maalin kale buug dhamay inaan weeks laba buug la saddex ka dhaxbo sababtu waxa weyn wixii baad xiiseynaysaa soo markaan si aad u bilowdo caadadii one by step hada buug baa ka anfacaysa haddii aad muuqaalka wax ka faa'iiday commentiga nagula soo wadaag sidoo kale haddii uu jiro mawduuc jeceshahay inaan kula soo wadaago isagana sidoo kale nagula soo wadaag aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka assalaamu calaykum